waxaana wanaagsan meel kastood naga daawanaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamij aynu ku eegeyno sida lacag lagu sameyn karo adigoon shaqo badan qaban. Waxaanu ka jawaabeynaa su-aasha ah sidee lacag aan u sameyn karaa anigoon qolkayga jiifka ka bixin. Suurtagal ma tahay qof aan qolkiisa jiifka ka bixin inuu lacag sameeyo? Jawaabtu waa haa. Haddaba siday ku noqonayso ama siday ku dhacayso ayaan barnaamijkan kooban ku sharxi doonaa, iyadoo barnaamijkan uu qeybo badan yeelan doono. Qofka rabaa inuu lacag sameeyo isagoo qolkiisa ka bixin xiliyada waqtiga uu hayo ama jaaniska uu leeyahay, hadduu haysto computer iyo internet, hadduu labadaas haysto qofku wuu sameyn karaa lacag badan, laakiin waa inuu yaqaanaa qaabka loo isticmaalo computerka iyo qaabka internetka loo isticmaalo. Haddaba barnaamijkan si gaara waxaa uga faa'iideysan kara haddii ayna daawanayaan dhalinyaro leh website-yada ayaa ka faa'iideysan kara, laakiin waa marka ay shuruudaha qaabkan lacagta loo sameyn karaa ay buuxiyaan. Waan filayaa dad badan inay ka faa'iideysan karaan barnaamijkan. Haddaba qofka website hadduu leeyahay waxuu sameyn karaa lacag iyadoo ku xiran hadba inta qof ee websitekiisa maalinkii booqanaysa. Haddii websitekaaga booqdayaal fiican uu leeyahay, waxaad haysataa jaanis aad lacag fiican ku samayso. Haddaba waxaynu halkan ku baranaynaa waxyaabaha lacagtaasi xagee ka imaanaysaa ama qaabkee karnaa. Waxaan halkan ku baranaynaa qaabka loo sameeyo waxa loo yaqaano qofka qaabka lacag qofku uu sameyn karo Google Ads dhahdo. Kaas oo dad badan aan filayo in dhagahooda aysan ku cusbayn. Google-ku sidaad ogtihiinba waa company aad u weyn, isla markaana wuxuu helaa idhahyo waxa xayisiinta loo yaqaano oo adduunka oo dhan ah. Marka wuxuu sameeyaa Google-ku waxa loo yaqaano online advertisement, oo ah in internetka lagu xayisiiyo waxyaabaha Google-ku ay markaasi shirkadaha ka helaan, kadibna qof kasta uu ka qayb qaadan karo. Tusaale ahaan, waxaad sameysanaysaa akoonkaas markaad samaysatid, Google-ka waxaad ka codsanaysaa form la buuxiyo oo qeybaha dambe barnaamijkan ku baran doono. Formkaasaad buuxinaysaa, kadibna Google-ka waxaad ka codsanaysaa in websitekaagaas noocaas uu yahay. Inkastoo weli aan lagu soo darin luqadda afka Soomaaliga, laakiin waxaa jira luqado badan oo markaa websiteku inuu wax ku qoro ay tahay. Laakiin haddii mar booqdayaal fiican aad leedahay, muhiim maaha luqadda waxaad ku qoraysaa hadday af Soomaali xataa tahay. Waxaa jira luqado badan oo ayaga kuu sheegi doona luqadaha aysan ilaa hadda weli aysan haynin. Markaad samaysatid kaas, Google-ku sidaas wuxuu kugu soo sameynayaa, waxay kusoo ogolaanayaan inay markaa markaad samaysid website-ka, qofka website dabcan website-yada sidaa ogtihiinba noocan oo kale ay u samaysan yihiin qaab ahaan. Marka meeshan waxaa loo yaqaanaa banner. Website-ka bannerkiisa ayaa inta fuulaya. Inta marka meelahaas koro kale waxaa fuula website-yada ku arkaysaan qoraallo soconaya oo af Ingiriis ku qoran, oo ama xataa waddan kale joogtid, waddan kastoo joogtid afkiisa ku qoran oo xayisiin ah. Intan waxaad ku arki kartaa meelaha geesaha, waxaad ku arki kartaa masawiro iyo waxyaabo xayisiin ah oo isbedelaya, oo hadba waddanka joogta afka looga hadlo marka laga reebo afka Soomaaliga ku qoraya. Marka taas waxaa loo yaqaan marka websiteka markii qofku uu booqdo bogga hore oo click siiyo mid ka mid ah waxyaabihii meeshaas saarnaa oo Google-ku uu maaragtay ku sameynayo monitoring ku sameynayo, adiga shaqo kuma lid, ayaga bedelaya. Adigu koodka ay kuusoo diraan unbaad websitekaaga dhex dhigaysaa meel muhiim ah ama meesha aad ugu talagashay in idhahdo ay fuusho. Iyagaa marka markasta bedbedelaya. Marka taas websiteka markuu qofku uu booqdo click uu siiyo, lacag yar baa kasoo baxaysa. Marka tusaale ahaan taas waa mid lagu karo. Haddii aad lahayn website, oo waxaad sameyn kartaa si free ku samaysan kartaa blogger. Haddaad leedahay mar walba akoonkaaga uu ku samaysan yahay Google akoonka, leedahay email ahaan u leedahay waxa loo yaqaana Gmail-ka, blogger-kana imaanaysaa, waa free. waad isdiiwaan gelinaysaa. Markaad isdiiwaan gelisidna waa kana sidaan u samaysanaysa, adaa website samaysanaya, kadibna idhahdii aad ka heshay Google-ka koodkii aad gelgelinaysaa. wax fiicanna waad ku qoraysa si booqdayaal aad u hesho. Qodobkaas koobaad oo lagu sameyn karo website-ka sida haddaba aan sharaxnay waa inaad haysataa website. Midda labaad,